mid waxa weeye sidoo hadda ka dhawaajiyayba constitution-keena professional oo wali dhamaystirnayn suurtagalna aysan noqon karin inaan aan galno heshiisyo caalami ah oo aynu ognahay inaysan xataa jirin kala qaybsanaan ama kala qornaan inay kala qoran tahay risaasiga dalka yaali sida loo kala leeyahay wax soo saarka dalka sidee suurtagal ku noqotay in la aqbalo tan labaad waxa weeye waxa jira ilaa 4 policy oo loo baahan yahay dalku inuu yeesho markii laga hadlayo natural resource dalku uu leeyahay oo dalka la heshiis la galayo maadaama ayna inagu awoodeeda lahayn shidaalkan inaan la soo baxno waxa la inaga rabay logistic policy inaan leenahay waxa la inaga rabay environmental degradation system or prevention system inaan leenahay waxa la rabay procurement policy oo dalku leeyahay inay jirto waxa jira xataa power sharing resource sharing xataa ma cadda oo sida hadda aad ka hadlaysay anagana aan xogaalka u nahay marka ma suurtagal ay noqon kartaa iyadoo ooba wadankii local policies ka aysan dhamaystirnayn isla mar ahaantaasna dalku dadku wada ogeyn oo aysan ogeyn wax kasta oo shirkadaas ama wadankaas heshiiska aan la galnay ama shidaalkaas soo baxay qof kasta fundamental right wuxuu u leeyahay in uu og yahay sida ay wax noqon doonaan iyo shidaalkaas markuu soo baxo xataa sida uu u socon doono iyo environmentigiisa wixii soo gaara logistic iyo iskala supply chain ah environmental system kaas oo prevention ka degradation ka laga hortagayo intaas dhanba ma jirto marka inta lagu ordayo in heshiis la galo soo ma habooneen marka hore waxyaalaha muhiimka oo dalku u baahan yahay in ay dawladdu marka hore ka fikirto ay sameeyso Soomaaliya xilligan la joogo iyadoo aysan jirin sharci dastuur la isku waafaqsan yahay oo jirin oo dastuurku meel gaar yahay oo wali aan dastuur la isku raacsan yahay jirin sharci batroolka oo la isku raacsan yahay oo jirin resources kale oo dalku lahaa si loo qaybsanaa heshiis lagu ahayn maca scholarships ardayda la siinay Ethiopia bixin yahay lagu heshiis lagu ahayn in la yiraahdo shidaal baa soo saaraya sidee macquul noqonaysa sidee lagu heshiinayaa soo ka baranayso in ay ka sii dhacdo sidii Nigeria ka dhacdo kale su'aasha labaad waxa weeye haween aan ku weydiiyo haduu wasiir baa soo ahayd 15 kila 17 kila wasiir soo ahayd xilligii uu ahaa Soosaare Cumar Cabdishiid maadaama marka aad wasiir ahayd oo aad yeeltahay ciidda awoodda leh inay sharci batrool inay samayso oo baarlamaanka geyso oo ummadda Soomaaliyeed wax heshiis ku yihiin inay samayso ciidda iska awooddaas miisan ahayn adigoo kale tomeesay maadaama aad tiraatay soddon sano ayaan haysanaa oo 10 sano ay noqonayso xilligii lagu soo saari lahaa inaan shaqo soo baxo yaa adigu waxay awooddaas 3 sano aad joogtay xaad u fulin weyday oo aad u toon weyday waxay dacwad ku tagnay marla intaas oo mushkila laga hadlaa laakiin su'aasha mudan waxa weeye maxay tahay mushkilada noogu weyn umad ahaan oo haysata oo la oran karo number 1 taas haddii aan xal u helo kuwa kale waa furfurmayaan ma jirtaa dad badan baa weydiiyay markaas waxaan aniga ila noqotay 18 sano ugu dhameysay hogaaminta weeye hogaamiyayaashu ama hogaamiyuhu nooca uu yahay ku xiran tahay mashaakil kasta oo xal loo helo oo ay ka mid tahay horumarkii heshiiskii dhinac walba batroolka laga hadlayo iyo qayb walba sababtoo ah heshiiska iyaga gaaray waxaan maxaa doorasho qof iyo cid loo rido ay madaxdii mushkiladu waa madaxdii qorshe u samaysanayaan ama ma rabaan ku dhaqaaqi mayaan waxa leeyahay maxaa loo heshiin waayay sababtu waa madaxdii soddon sano maxaa loo dhisi waayay dawladii burburtay Soomaaliya sababtu waa madaxdii wax walba waxay ku daba wareegayaan batroolka soo saaro waa madaxdii waxaa la bilaabay waa la joojinayaa waa madaxdii marka aan helno madax daacad u ah dalka iyo dadka iyo diinta markaas baa loo deji karaa wixii aqoon ku saabsan iyo qorshe marka soo jeedintaad ma marka soo jeedinta waxa weeye mushkilada noogu weyn soo ma fiicnaa in la yiraahdo si uu abaarnaa oo u keenaa madax na gaarsiisa meeshaan rabno way toosaas su'aasheedu waa midaas intaas oo uga baxaya waxaan inaan ku darso comment laakiin dad badan baa isugaya salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh aan taariikhda dib ugu laabano sida hadaayta aan sheegay 2008 ayay ahayd markii la ansixiyay sharcigii ugu horeeyay ee 2008 loo yaqaan petrol bilowgii marka Allah u naxariistay Cabdullaahi ayaa madaxweynaha sharcigu wuxuu dhahayay hal sameeyo
Somali National Oil Company hala sameeyo Somali Petroleum Authority laakiin intiyaalatii 2020 sharciga markii la ansixinayo 12 sano kadib wali wuxuu leeyahay hala sameeyo Somali Petroleum Authority hala sameeyo Somali National Oil Company 12 sano kadib maana sharcigaas maana markaas wuxuu dhahay hala sameeyo labadaas just one example kii 12 sano kadibna hadana wuxuu leeyahay labadii hala sameeyo soo muddo 12 sano kadib maanaha wali waxa loo yeerayaa labadaas in la sameeyo hadda oo aan taaganahay waxa leeyahay shuruucdii waa la sameeyay laakiin ayagoo maanaha active oo maanaha operationalized hala sameeyo hadacaan marka way ay u dhaqaaqi laayihiin maanaha hal factor oo petroleum ku xiran ma waa factor fara badan oo ku xiran arrimo kala duwan qayb kamid ah marka waxa mas'uuliyadda iska dowlad goboleedyada qayb kamid ah waxa iska dowladda dhexe maana ma aha wax aan inaan ka leexleexana ay tahay ma sababtoo ah maanaha awoodaha la isku hayo ma aha awoodaha petroleumka kaliya ma hada shirkii ay heritage qabanaysay wasiirka dastuurka ayaa ka hadlay 26 wasaaradood ee federaalka ay leeyihiin 26kooda dhiga ah inta ka jira dowlad goboleedyada ka jira challenge ayaa ka wada haysta caqabada ayaa haysta marka caqabadii waxa laga yaabaa inay tahay mar waxbarasho mar waxa laga yaabaa wasaaradda gaashaandhigga inay tahay mar waxa laga yaabaa inay tahay wasaaradda petroolka maanaha wasaaradihii ay caqabada ka wada jiraan ma wax ku kooban hal wasaarad ku kooban ma oo kuwa kale inta wuxuu soo wada dhameysteen hadda waxaan la joogaa wasiir dawlaha waxbarashada la joogaa Puntland Abdullahi Roble kulli asaan noo sharxi doono maanaha caqabadaha isku qabaan kuwa federaalka soo marka issue-ga maanaha hadda caawan inta halkan u fadhin waa petroleum laakiin caqabadahaas oo dhan ayaa ka wada jiro oo aan wada baahanahay in aan ka wada hadalno marmarka qaarkood marka waxyaabaha dhacaya waxa kamid ah dastuurka laftigiisa ayaa caqabad ah hadda tusaale ahaan Puntland waxay leedahay dastuur ay leedahay qodobkeeda 54 marka akhrisid waxa uu leeyahay kheyraadka Puntland waxa iska leh dadka Puntland waxa ilaalinayo oo ka faa'iideynaya dawladda Puntland ayaa ka faa'iideynaysa okay marka fiirisa marka qodobka 44 ee dastuurka wuxuu leeyahay dawladda dhexe iyo dawladda goboleedyada waa inay ka wada hadlaan sida loo yeelanayo loo maamulayo loo wadaagayo kheyraadka ka soo gudub heshiiskii beedhaba lagu galay waxa uu leeyahay qodobkiisa marka uu soo gaaro lahaanshaha kheyraadka Soomaaliya waxa iska leh dadka Soomaaliyeed ayagoo ay wakiil ka yihiin dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada hada heshiiska Cabdulgaas uu saxay soo marka maana waa arrimo u baahan siyaasad oo maana marka qaarkood dastuuradii laftigooda u baahan yihiin in la iswaafajiyo marmarka qaarkood ay u baahan tahay faham siyaasadeed oo lagu adkaysto u baahan waxa dhici karta in heshiis la gaaro laakiin heshiiska dib looga laabto ma wax qarsoodi ma hal mar dhowr jeer ay dhacda soo marka waa caqabada jaalo ka soo hormarina maanaha inta meel iska dhigno arrimahan saameynta iyo hadal haynta shidaalka meel iska dhignaa oo ma ku heshiinaa siyaasadda ma ka shaqeynaa den markaas kadib dastuurka ma soo dhameystirnaa markaas kadib shidaalka ma u soo jeesanaa waa su'aal taagan oo dadka qaarkood ay u arki karaan inay sax tahay laakiin goorma waa waqtigaas maana 12 sano ka hor ayay ahayd markii 2008 sharcigu ansixinay oo dhahay markaas arkayeen isdhahay shidaalka arrimihiisa waa soo dhaweeyeen laakiin wax badan oo ka hirgal ma laha haddii hadda marka aan dhahno okay arrimahan shidaalka iyo waxaas aan iska dhaafno aan siyaasadda ku heshiino dastuurka aan soo dhameystirno shuruucda aan yeelano maanaha sida hadda ay farax weydiinaysay maanaha midda logistically ma aha daayt waxaan sheegay environmental maqan maanaha hay'ado fara badan maqan even hay'adan hadda la leeyahay shidaalka maamusho oo Somali Petroleum Authority ayada laftigeeda maanaha wali gooni u taagtay xafiisyo samaystay shaqaale yeelatay dad aqoon la keensatay regulations ka diyaarsan ma marka waaqac laga hadlo on paper bay ku jirtaa mooyaane maanaha ma aha hay'ad howlgasho ma hadda kadib bay howlgalaysaa soo marka inta waxa sii dheer marka maanaha sida noocan marka la gaarayo waxa loo baahan yahay wax loo yaqaan advisory transactional team dad khubara ah oo maanaha experts ah oo arrimahan ehel ah hay isugu jiraan dad geologist ah maanaha petroeconomist ah maanaha accountant ah marketing ah negotiators ah maanaha dad noocaas ah oo expert ah oo u dhigmi kara shirkadahan dadka ay soo dirsanayaan annaga hadda dadkeena Soomaalida ah ee waagii macnaha 8 heshiisyada galay ama qaar intooda badan waa dhinteen ama intooda badan waa retire maanta ma haysano dad experts noocaas ah oo negotiationka noocaas ah u diyaarsan oo gali kara ma haysano
macnaha markii reality laga hadlo soo marka dad noocaas inaan helno laftigeeda macnaha waxay u baahan tahay effort u baahan tahay inaad soo saarato dad noocaas ay effort u baahan tahay marka waa run macnaha caqabado fara badan ayaa jiro laakiin su'aashii haddana ku laabanayno waxay tahay haddii aan dhahno arrimahan shidaalka meel naga dhiga waxaan aan soo xalisano macnaha just example ka daad soo qaadana 12 sano kale aan sugno oo la gaaro 2032 la gaaro oo halkaasna ay ka muuqato 2050 ka arrimihii shidaalka inay soo gabagaboonayaan dee waa qiyaas karnaa macnaha cid shidaal markaas maal gashanaysa malaha marka caawa aadan u jeclaan lahayn haddii qof hal xiraalahaas uu furi karo oo dhigi karo labadaas saan u balance gareynayn talada saasaan u hayna aad ayuu u fiicnaan dhawaan soo dhaweyn lahayn haddii marka arrintan soo sharinka macnaha uu jaamac uu weydiiyo oo ah macnaha too soon ma tahay still su-aashii hore bay ku laabanaysaa macnaha maxaa too soon ah macnaha ma dhahnaa arrimaha shidaalka aan iska dhaafno ma dhahnaa oo macnaha dastuurkii waxeeda ma dhamaysanaa exactly su-aashii ay ifraax ayuu jaamacna uu si kale u dhigay laakiin arrintaas ayada laftigeeda waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro arrimahan ah macnaha petroleum actiga macnaha ma dhamaystiran yahay macnaha ma laisku wada waafaqsan yahay waa caqabadihii jira unbay 26 hay'adood haystay ka mid tahay macnaha qarsoodi maaha macnaha Puntland mowqifka ay ka istaagtay macnaha sharciga markii hadda la ansixinay markii hadda la sameeyay Somali Petroleum Authority macnaha mowqifka ay ka istaagtay qarsoodi maaha macnaha way weydiideen laakiin maaha wax ku kooban macnaha isfaham la'aantaas arrinta ma shidaalka kaliya ku kooban maaha arrimo badan ayaa jiro oo u baahan macnaha hadda midaan oo madasha hadda ugu dambeysay garow lagu qabanay waxay aad loogu soo celinay doorashada kamid ah soo marka arrimo badan oo waxa jirto oo u baahan in laga wada hadlo xal la gaaro soo marka qayb kamid ah ayay tahay arrintan oo professor Sulub uu sheegay macnaha asaga leader ayuu yiri macnaha waa un siyaasadii macnaha waxa ugu weyn oo u baahan tahay Soomaaliya in case marka hore oo ciise dholwaan hadaad uu tilmaamay hadaatan anaga aan sheegaynay waxay tahay waa siyaasadda haddii muwanis dadka ay siyaasadda ka heshiyaan waxyaabahan kale oo farsamada waa suurtagal waqtiba ha qaataan ha iska dhib badnaadaan laakiin haddii wadajirkaas uu jiro fahamka siyaasadeed xal waa laga gaaraa laakiin haddii arrinta siyaasadda ay cakiran tahay dan waa adag tahay waxyaabahan kale aan sheegayna ama shuruuc ha noqoto sababtoo siyaasadda shuruuc loo bedelaa marka shuruuc loo bedelo kadib unbay imaanaysaa macnaha wixii farsamo ahaa iyo dhaqaale ahaa markaas imaanaya laakiin haddaanan arrimaha siyaasadda laga heshin waa adag tahay waayahay waxaynu siin doonaa oo aynu ku noqon doonaa mar inoo noqotay qolada farsamadu ay inoo sahasho doctor cali cadaawe oo isagu khadka suumka inoogu jira inta cali la diyaarinayo waxaan rabaa inaan hal su-aal ku noqdo 12 sano kale mayn sugnaa waxaa ka dhalatay su-aal dadka qaybtii ay qabaan oo ah inaga oo sidan u jabjaban oo waxyaabo badani ay khaldan yihiin ama ay wax ka dhiman yihiin in hore loo dhaqaaqo oo heshiisyada la galo taas maxaa ka dhalan kara maxaad si raayaan ka qabtaado runtii aayada laftigeedu waxay ku xiran tahay waqtiga la galayo haddii wadanka uu xilligan hadda uu ku jiro kale oo waxaan ka hadlayaa dhanka federaalka oo baarlamaankii federaalka waqtigiisa dhamaystay oo dawladii ay 30 casho madaxweynaha waqtigiisa uu u haray 35 casho meelaha dan ilama haboona inay tahay waqti ku haboon in heshiis shida la galo taas macnaha su'aal kama taagno laakiin waxaan ka hadlaynaa macnaha waxay tahay arrintan gabi ahaan macnaha arrimaha shidaalka ma aha arrimo ku xiran maamulka markaa joogo ku xiran ma sahmintiisa raadintiisa ka shaqeyntiisa macnaha sidee ka yeelna macnaha sida Norway oo kale waxay nasiib u yeelatay hay'adaha institution adag ayay lahayd macnaha arrimaha shidaalka markay arkeen ugu horeysay waxay yiraahdeen okay anaga ma naqaano meel ay iska dhigeen 3 sano ay sugayeen waxay isu diyaariyeen hay'adahooda u diyaarsadaan waxyaabihii ay u baahan agabkii u baahnayeen aqoonta u baahnayeen hadda waa ayagu markaas dawladda oo kartida oo aqoon leh oo macnaha waxyaabo badan ay u nidaamsan yihiin laakiin waxay diideen inay ku dhaxdhacaan macnaha haddeen kadib markay ay diyaar garoobeen ayay arrimaha shidaalka ay u soo jeesteen anaga marka hadda dhibkan haysto waxay tahay macnaha fursadaas ma heli karnaa oo ah inta meel dhigano 3 sano ama 5 sano ma dhigi karnaa arrinteen waa kusoo dhamaanaysa anagoo diyaar ayaa laabanayno mise macnaha routiinkan haddana mar walba soo celinaa waad baadsantahay wax badan baan kaaga mahadnaqayaa dad badan oo siyaasiyiin Soomaaliya wasiirro ah baan naga batayo garbage isaga hadla laakiin maanta si wanaagsan baa u hadasho cilmiyeysan sida uu dhigtana wax waa biyo kama dhibcaan su'aashan ku weydiinay waxay tahay blocks baa la gaday baa tiri blocks ka la gaday waa ognahay dadka Soomaalida maanta madaxda ka ahi dad integrity ma aha wax weeye inta yar oo xafiiska joogo buu rabaa inuu wax dhifsado blocks ka la gaday royalty lacag la dhaho baa ku jirta lacagii xagee mareen yaa qaatay nimankii madaxda dalka ahaa su'aasha kaliya ku weydiinay
waa mahadsantahay Faisal waa salaamaya madasha doodan wasiirkana waxa weeye oo u mahadnaqaya sida kooban runtii xog badan oo bixiyay waxa rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood aad u kooban su'aasha koowaad waxa weeye wasiirku wuxuu sheegay in waqti hore la soo bilaabay sahaminta shidaalka afartamaadka ilaa kutumeeyadii marka ama ha noqoto shidaalka sahaminta dadkii sameeyay iyo dawladihii ama ha noqoto heshiisyo ay saxiixday dawladihii ay saxiixeen dawladihii isku xigay Soomaaliya ma jiraan dawlado gaar ah oo u xiran tahay ama goobo gaar ah oo iyagu ilaalsada sahamintaas waxa weeye goobahaas taas waa su'aasha labaad waxa weeyaan wasiirku wuxuu noo sheegay in heshiiska koowaad sharciga koowaad la sameeyay 2008 laakiin dib loogu noqday sababtuna ay ahayd dastuurka oo qodobkiisa qaybsiga khayraadka ku laalay wadatashi ka dhaxeeya dawladda dhexe ee federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah haddana sharci baa la ansixiyay welina dastuurka qodobkii siyaasad ahaan loogama heshiin miyaysan markasta noqonayn dib ugu noqosho sharcigaasi inta aan laga heshiin dastuuriyan qaybsiga khayraadka الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدشة جودهم بوان سلامية أنا جو هذا الكياد سكوبية وحنا وستير كرباين الويديو محا هرتاج العقبات إن الوطن كان الشارع كيسان كلا صوبحنا مركي لقت بالسياسة هان يحيالها يزدبت شيء تمي وحين أركنا السياسة ده مر مركز ده مستني أدرس حماني سو وحاول مريني يعني يلا سيد وكلا إن صار تشبلا كقاب إن السياسة ده الصومالية سيدي وهذاكته مركي السياسة ده يقرب لها الله حلقة إسكارينه maxaa caqabada inta wasiirka ahayd aad la kulantaa isleedahay alla ilaahay koow iyo laba jiro oo shidaalkeena ma soo saarsan karo aad waa maasanta aniga intaan ogahay oo aan categorical aan dhigi karo maanaha cid aan ogahay inay block Soomaali bixisay oo jirto ma jirto maanaha aan mar labaad inaan ku celiyo dadka Soomaaliyeed aad u aaminsan yihiin inay jirto heshiisyo la galay blocks la bixiyay maanta wax dhac ma aqaan maana hadii maanta ay dhacdo arintaas waa arin ugu cusub laakiin wixii ka horeeyay cidii ku tiraado maana blocks Soomaaliya la gaday oo BSA production share agreement ya la galay oo maanaha shirkadaha la siiyay waa arin aan jirin oo ku soo wada okay Somo Oil waa shirkad 2013 Soomaaliya imaaday waxa ay la gashay macna waxay ahayd waa wax loo yaqaan seismic option agreement oo ah inay xog ka aruuriso Soomaaliya maanay la gelin heshiis blocks lagu siinayo waxay la gashay heshiis xog looga aruurinayo Soomaaliya marka heshiiska wuxuu ku jiray markay soo dhameeyso xogtaas oo Soomaaliya ku soo celiso inay soo dalban karto 12 blocks heshiisyada marka la galayo shidaalka lagu bixinayo annaga 2008 wixii ka horeeyay waxaan qabi jirnay wax la concession agreement arintaas aad ay muhiim u tahay fadlan raanaha dadka Soomaaliyeed inay aad u fahmaan 2008 wixii ka horeeyay manaha heshiis shidaal marka la galayo waxaan gali jirnay wax loo yaqaan concession agreement oo hadda arinta ka hadlayso ah manaha dhulkan qaado adiga waxaad aniga siisaa royalty iyo signature bonus waxa siga sii laakiin caalamku waxay arkeen gaar ahaan Indonesia u horeysay 1962 dhul ay bixiyeen oo shidaal laga baarayay ay wax yar ka helaan oo shirkadihii ay wax badan faa'iidaan dan kacdoona bilowday oo la leeyahay maya wixii adiga riskiga qaado laakiin haday faa'iido soo baxdo waa wadaagayna waxa soo baxay marka waxa loo yaqaan production share agreement annaga marka wixii ka horeeyay 2008 waxaan qabi jirnay concession agreement sharcigaas marka waxa lagu keenay inaan u guurno production share agreement even kuwii hore noogu la jiray legacy contract ku jiray waxay ku qasban yihiin inay u soo guuraan BSA oo negotiation cusub ay galaan dhulkoodu way leeyihiin su'aal kama taagna laakiinse termiska macnaha waxay la garaayaan BSA-ga BSA-ga marka anaga xilligeena markaan joognay markii hore wuxuu ku lifaaqnaa 2008 ayuu sharcigooda ku lifaaqnaa ayuu ku lifaaqnaa 7 page aha dan marka imaanay dib u eegisan ku sameeynay waa la kordhiyay 123 page uu noqday African Development Bank iyo qolooyina naga shaqeeyay dib sababtoo ah waxyaabo badan oo maana waa qiyaas kartaa dhowr 10 sano soo kordhay ayaa lagu soo daray markii la dhameeyay 2016 FGC-ga marinay meeshan kaga tagnaanaga hadda dawladdan way imaaday waxaan maqlay inay wax ka bedeleen laakiin ma hubo in FGC iyo meel kale la mariyay alxaasil isku soo duubo maanaha heshiiskaas ayaa ah heshiiska hadda hadii aad gashaan maanaha Somali license round wuu ku jiraa hadda 100 page waa meesha ku jiraa BSA meesha ka helaysa wax qarsoodi maaha heshiiskaas waa heshiiska lagu galo shirkadaha
marka cid Soomaali ah oo aniga aan intaan ogahay oo blocks heshiis noocaas inta gashay la siiyay ma ama Soma Oil ha ahaato ama Spectrum ha ahaato ama cid kale ma ahaato laakiin xan ayaa socoto oo macnaha hadda shalay maanta inay shirkadihii ay xamar yimaadeen oo ay heshiiskaas galeen ayaa xanaha socoto taa aniga macnaha ma confirm garan karo waxba kama dhigi laakiin wixii ka horreeyay cidii ku tiraahdo macnaha blocks la bixiyo lacag la qaato xaggaas waxa jira ma okay arrintan macnaha legacy contract oo su'aalaha heshiisyadaas shirkadihii galoo dhan macnaha dawladda Soomaaliyeed waxay ka dhaxashay dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ay ka dhaxashay macnaha dawladda federaalka waxay ka dhaxashay wax alaale wixii mas'uuliyadda wax alaale wixii heshiisa oo dawladda hore ay u gashay ayada ayaa dhaxashay soo marka legacy contract ama shirkadii hore loola galay qandaraasyadaas macnaha way jiraan waa baarid laakiin waxaan sameynaa macnaha waxay tahay waxaan abuurnay wax la yiraahdo petroleum registry oo golaha wasiirada aan ka ansixinay oo dhahaya shirkad alaale shirkadii rabtay inay sii joogtana inay soo laabato shirkad alaale shirkadii aan doonayna ha baxdo mana hadda shirkadaha Shell iyo ExxonMobil waxay yiraahdeen anaga waxaan rabnaa inaan soo laabano oo shaqeysano kuwa qaarkood ay ka mid yihiin BP Amoco waxay dhan anaga waxaan rabnaa inaan baxno soo marka laakiinse termiska lagu wada joogayo mana BSA-ga cusub lagu wada gorgortami doona BSA-ga cusubna waxa ku jira fiscal terms kaasa macnaha wada xaajoodkaas mana waxa ay helayaan waxa anaga aan helayno si wax loo kala qaadanayo maxay waxa soo dhan waa negotiation cusub oo aan la gali doono shirkadahaas hadii la yiraahdo arinta dib u eegista dastuurka manaha sida socotaba manaha cimrigaada Allah dastuurka ka dhigo karo waa ducada hadda socoto manaha dib u eegistaas waa soconaysa marka waa undee marka alaali markaan ku heshiina anaga oo siyaasad ahaan aan ku heshiino ayaa manaha la dhameystira waxaan filayaa madashii heritage ay qabateen macnaha aad loogu dhawaajiyay 8 qodob ugu xasaasisan oo macnaha la isku hayo oo macnaha oo contentious issues-ka kuwaas ayaa kamid ah marka kuwaas markaan ku heshiino oo Soomaaliya ku heshiiso dastuurka in la dhameystiro way fududahay laakiin kuwaas oo lagu wada heshiin mana waa adkaanaysa kuwaas waa marka wax caqabadaha hor yaalo kuwaas aan u baahan in inta Soomaaliya ka wada xajooto deen markaas dastuurka aan ku dhameystirno arinta ah macnaha maxaa hortaagan shidaalkeena in maxaa kugu adkaa adiga way macnaheedu su'aasha gabadhu ku weydiisay markaan imaaday sidaan daaytii idin sheegay jaad markaan tagay waxyaabaha aan ka soo bartay waxa kamid ahaa in caqabada ugu weyn inay tahay siyaasadda markaan imaanay xafiiska 15 February ayaa maana 2015 waxa ugu muhiimsanaa marka oo meesha marka ay yaalo waxay tahay aan weydiiyay teamkii marka wasaaradda joogay maxay tahay hor yaalo waxa ii soo baxday in arinta wada hadalkii qodobkii 44aad aanu ahayn arin markaas wada xaajoodkooda uu socdo waxaan rabaa Ciise Dhoolwaane inaan u mahad celiyo Ciise la soo hadlay waxaan riniyo waxaan u baahanahay markaas Ciise waxa waaye Puntland Petroleum Agency ayuu madax u yahay waxaan rabnaa arintan inaan dhaqaajino arintan inaan furfurno sababtoo macna badan ma sameynayso in dawladda federaalka waraaqo inta soo saarto ay tiraashidaal ma laga shaqeyn karo macnaha la sacay wax macna ma sameynayso tiimarka waxay kaliftay waxaan u soo diray laba nin oo hadda ninka ka ah Somali Petroleum Authority oo madaxda ka Ibrahim iyo engineer Abikar ayaan u soo diray waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego maalintaas aan soo diray ticket return uma aanan hayn ciisan soo wacay ciis waxaan aniga laba nin ku soo diraa hotel uma hay jiif uma hay adaa bixina laakiin ana ticketkooda googaan siina markay ku soo ay soo dhamaadaan bag ana u soo diraa laakiin adiga runtii si gobnimo ayuu u martay soo Puntland waa kaga mahad celinaa ciisana waa kaga mahad celinaa marka meeshaas ka bilaabatay den waxaan tagnay Jubaland si arintan loo furo wadadaas dheer ee resource sharing-ka 2015 ka soo bilaabatay laakiin macnaheedu ma wada fudud ma ahan waa wada dhib badan welina dhameystir u baahan sababtoo ah macnaha saameynta resource sharing-ka mar waa macnaha waa vertical way mana dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada marna waxa ka hadlaysaa horizontal macnaha dawlad aan wax soo saaran iyo dawlad wax soo saarta laakiin anaga nasiib wanaag aan qabno Soomaali aadan u jeclaan lahaa maabkan even haddii uusan hataa kan inaan la wadaago dadka Soomaalida isteediyada hadda siday u abuurmeen sida hadda isteediyada u abuurmeen ay u sameeyeen isteed la dhahayo wax ma soo saaro way hadda imaaraadka kale marka fiirso waxa jiro gobol yiraahdo Ajmaan shidaal dhan ma laha shidaalka ugu weyn Abu Dhabi haysta Dubai shidaalku ka dhamaaday laakiin anaga nasiib wanaag isteediyada hadda sidaan Ilaahay anaga u sameeysanay in isteed leeyahay shidaal ma jiro waa lagu kala badnaan karaa taas su'aal kama taagno laakiin isteed leeyahay wax ma soo saaro oo dul saar ku noqonay kuwa kale ma jiraan taa marka macnaheedu maxay tahay resource sharing-ka hadii dadkeena ay sidaas inta u fahmaan arrimahan siyaasadana la iska fahmo macnaha culays ma imaanayo laakiinse haddaanan arrinta siyaasadda la isla fahmin dan waa adkaanaysaa inaan weydiiyo intaynaan ku daalin bal horta maamul xumadeena iyo dhibaatada ayna haysato xagga dawladnimo iyo sida waxay naga yihiin
shidaal dhab ah oo aan leenahay oo commercial geli kara ma leenna. That's the question. su-aashaas waxay daba socotaa wax yar oo aan rabo inaan iyadana aan su'aal yar u ekaanaysa oo ah Puntland hadda ka hor shidaal baa laga baari jiray muddo dhowr sano ah. markii ugu dambeysay kolay wararkii la shaaciyay waxa kamid ahaa in biyo badan loogu tagay intaasoo kun oo maarta mitir loogu tagay ama Puntland ha ahaato taasoo kale iyo waxyihii ka horeeyay ama ka dambeeyay iyo meelaha kaleba xogta aad ka haysid wasiir ahaan intee bay leedahay Soomaaliya inay shidaal leedahay commercial gali kara way meeshaas shidaalkaas horey loo sheegay inuu biyo noqdayna warkiisa aan si karo inuusan conflict keenin uusan dalka gaar ahaan wadamada colaado sida kuweena kala saameeyaan uusan uga darin maxaan ku yiraahdaa in lagu heshiiyay wax la mid ah sidoo kale corruption ku sheegay casharkii uu ka soo bartay engineer chat iyo conflict of interest anigu waxaan si gaar aad u danayaa corruptionka iyo arrimahaas sidoo kale waxaad sheegtay yani overall waxa la yiraahdo resource cost ama cuqubada ka dhalata wadamada caynkaas oo kale shidaalkooda ama macdantooda marka la soo saaro marka waxaan rabaa halkan caawa civil society bunsaba ku martigelisay waxa ugu badan ay ka shaqeeyaan waa transparency iyo good governance on filay condition main arrintii uu ka hadlay professor Sulub hogaamiyaasha in laga helo integrity-gaas marka waxaan rabaa xogaa yar in hoos kugu yar dhigo adiga wasiir Mr. Mukhtar markaad wasiirka ahayd 2017 wasaaradda macdanta iyo petroolka reportkii qaramada midoobay ee SMEG 2017 wasaaradda waxay ku eedeeyeen inay gashay contractiyo aan transparent ahayn oo ay ku baxdeen $390,000 oo dadka Soomaalida ah lahaayeen markii lagu yiri reportkii kan wasaaradda la yirina report ay qofkii consultant ku qoray qof aan keenay ku qoran yahay author different ah laakiin yeelkeeda haddana heshiiskiiba waa la waayay heshiiskii ay la galeen ciddii assessment-ga samaynaysay marka yani injamina sida u dhigtay hadda noogu sharaxday casharka hadda waxa tiri casharka ka soo bartay waxa siyaasadda laakiin sida markii hore u sharaxday anigu waxaan arkay casharkan ka soo baran lahaa waxa family business wadan inaan loo bedelin ama conflict of interest iyo public interest in la kala ilaaliyo marka labada ayamaha horeeyay marka injimiina tagtay marka wasaaradda la daawan arrintaasna maxaa dadka Soomaalida maanta uga sheegi kartaa waa qodob kale su'aasha labaad degdeg waxa weeye runtii aqoon baa ka muuqatay sectorka fiican ma sha Allah waan kugu hambaleynayaa wasiirna waad soo ahayd shalay waxa la kala saxiixday Muqdisho heshiis PS haddana waxay ku jiraan xilli kala guura xilli kala guura sidaad sheegtay xaalad badan siyaasadda heshiis lagama aha conflict cusub ma keeni kara seeb kula muuqda heshiiskaas la ma lay maqlaa waa ku maqalnaa walaal hore magacaygu waxaa Axmed Maxamed waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo inta badan Soomaaliya waxa la sheegaa inay dibana u tahay kheyraadkeeda gaar ahaan kheyraadka duugan ee uu shidaalku ugu horeeyo dalalka sida gaarka afarta loogu fiiqo waxa kamid ah dalka Norway oo kale oo aqoon-yahanada qaar ay halis ku tilmaamaan marka maxay tahay ujeedka ay dalka Norway inaga leedahay oo kheyraadkeena ka leedahay su'aal waxa qaatay Dr. Bashir laakiin sanadkan waa saxaya 2015 buu ahaa isaan filayo waxana way sababta keenaysa in shirkadaha yaryarka ay u soo dhacaan wasaaradaha oo ay maartay yiraahdaan capacity baan ka dhisaynaa hatta yiraahdaan shaqaale baan mushaar siinaynaa sida uu Financial Times ku uu qori jiray 2015 wasaaradda taas xoogaa faahfaahin naga sii xiliyadaas ina dhacday ayaan filay mid labaad waxa weeye Spectrum shirkadda la yiraahdo xilliga heshiiska la galay dhinaca Puntland way ka hartay ciise dowlaw ayaana xilligaas agaasimo ka ahaa waqtigaas waxa dhici karta inaad ka aragti duwaneyd adigu inay Puntland ay ka aragto laakiin for your opinion aragtidaada hadda shakhsiyadeed Puntland maxaa kaga halaabay ka haridaas miyay ku faa'iiday mise waxba kaga halaabay mahadsanid marka gaarto ayaad ogaan kartaa inuu shidaalkaasi uu yahay inuu ganacsi gari karo inuu uusan gari karin marka stage-kaas wali maanan gaarin
marka mid aan la dhihi kara xaqiiq waaye ganacsigu geli kara kuma jiro laakiin hadda sidaan sheegay maana wadamada dariska oo dhan maana potentially kulligood shidaal waa laga wada helay maana weli shidaal oo commercial geli kara laga wada helay marka anaga inaan potential mid noocaas aan laga heli karo maana fursadeen aad ayuu badan yahay laakiin xaqiiqda dhabta waxa la gaari doonaa marka stage-kaas marxaladda ayaa la gaari doonaa arrintan oo arrintan Bashiir iyo Ismaaciil waa isku qabanaa waxaa dhacay 2013 markii shirkadii Soma Oil ay heshiiska la gashay manager wasaaradda dad khubaro ah dad aqoon leh managerin hay'adaha kale dawladda sida la socotaan haddii ay noqoto wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaliyadda ay wasaaradda kala jiro waxaa jiro hay'ado caalami ah oo counterpart u ah ama la shaqeeyo ama kaba oo siiya dhaqaale si ay u helaan dad waay arag ah heshiiska marka 2014 waxaa wasiir ahaa Daawuda ahaa wuxuu dareemay in loo baahan yahay dad khubaro ah oo wasaaradda ka shaqeeyo oo aqoon leh oo dad noocaas ah taas ayaa keentay marka horta heshiiskaas in la galo اللي يرادو معناها وحنا سيسان دقالة لو كبو دتك طبعا دد وحا كجري مركا مشاركة كقادنية دولة لكن مشاركة دولة لا قادنية أو كيرا أرنتاس مركا معها أرن كوكوبا وزارة بترول كري كوكوبا معها وزارة الدولة هيدا الدولة لنا كجران حفيز كمدحوين الجوجان حفيز كبرامسر كيجوجان معناها صابتو هدي أترى قفك معناها ويرجع أقوان تله $700 قصينا أما $1,000 قصينا إيه شقة ما أنا وعدتها إن تكسر جيدته صبرك واحد وباهنتها لعك بدن إن تسيس أيضا وباهنتها أرنتي مركا ولا السياسة دي مرتين جروب ريبوت كوي قرن ما أنا هو يقول رساني أنا جوحان سعداتي عن شغلنا فبراير أرتقني لو كنا يشاني تمنكي لكن هالشيء وحق الوحوها وزير داود وها ظروفها سون وقري sidoo kale waxaa kaloo ku jiray in data room la sameeyo ku jiray in macnaha wasaaradda macnaha practical la kabo ayaa ku jirtay markii ay eedaynta soo baxday eedayntu waxay u gudbiyeen xafiiska series fraud office ee UK iyo anaga ayay noo soo gudbiyeen arrintii guddi ayaa uu prime minister ku saaray Umar Cabdirashiid sidoo kale xafiiska UK na arrintii waa la baaray soo marka labadii dhinacba arrintii waa la waayay wax cadeynaa in Soomaaliya ay actually معناها أنا الشرع جينا مرة بودكاست مصباحي مرة ها معناها communication كوالو سمي ومصباحي مرة لكن قف على إيدين كرا قف على إيدين كرا لكن سه معناها حفيز كي UK معناها عد لو دعوة مرة أو مركي لباري أرنت الأسبوع هيستين معنا وحيتها شقوين كان ده كان مشار كان قادنا أي مركب معنا وحلوة في السري إن سمو أي مشار سينا سو أي وشقينا أنا أكتور أساس ما هين هذا شقارة أنت حفيز كهذا فدي وحفديه ضد UNDP كقات مشار ضد وحجره أيرو كقات مشار ضد وحجره يونيسف كقاته معناها أنصان فورد معناها حفيزية الدولة لكن أرمها بتروح مركب إمادو مجرته معناها هيئات نوعها أو كبس مجرته وحنقول بعنتها ضد إكسبرتسا معناها دي مركب أتراهيد dad Soomaaliyeed oo aan experts ahayn ayaan hawsha u diraa oo aan ma keensanayo dad aqoon ma keensanayo then waa kaanaysaa in ay shaqadeeda qaado marka meeshaas maadaama company la xiriirayo oo aanay ahayn hay'ado faa'iido doon companiyadu faa'iido doon yihiin ma jira wax marka xitaa caawimada noocaas laga dalbanayo wax lagu xadidi karayo oo sharci ma jira mise loo baahan yahay runtii macnaha waa kind of waxaan loo yaqaan digaag iyo ukunta yaa soo hormarayo adiga waxaad u baahan tahay dad waay arag ah oo aqoon leh oo dad Soomaaliyeed ah oo ku shaqeeya hadii aad tiraa marka shirkadii laftigeeda macnaha mushaar ha ku siiso macnaha dabcan waa soo geli kartaa conflict of interest way soo geli karaa oo taas su'aal kaba taagno laakiin se macnaha midda meesha ku jirta macnaha waxay tahay see laga yeelaa hadii aanay ilin shirkadii aadan shirkad kale macnaha inta imaado ma siinayso qolooyinkan macnaha international agencies kan ma siinayaan soo marka waa arrin adag oo dadka Soomaaliyeed sidii u heli lahaayeen inay kaga madax banaanadaan shirkadaha ay kula tacaamulayaan inay kaga madax banaan waa arrin oo caqabadeeda leh waxaan rabaa mid kale ku xigto arrinta ah heshiis cusub runtii macnaha hadii de heshiis maanta la galay saadaati sheegay uu jiro waa arrin gooni ah laakiin aniga intaan ogahay macnaha wixii maanta iyo shalay wixii ka horreeyay macnaha heshiis Soomaaliya ay gashay oo blocks lagu bixiyay oo macnaha ama golo wasiirra maray ama macnaha baarlamaan maray ama macnaha FGC maray ama guddiga qandaraaska maray ama meel kale maray ani maan ogeey ma jirto soo taasna waa ka socona arrinta oo Norway ah
aad ay u fududahay inaan eedeyno Norway inaan Kenya eedeyno inaan Ethiopia eedeyno macnaha inaan cid kale eedeyno way fududahay laakiin horta waxa u baahan dalkooda inay ku heshiiyaan ay macnaha ayaga siyaashaan wadadka Soomaaliyeed haddii marka anaga aan siyaarano macnaha hadii cid kale oo noo yeerin karto maraha su'aasha ku saabsan macnaha spectrum macnaha heshiiskii spectrum lala galay wuxuu ahaa heshiis xog ururin ahaa muunan ahayn heshiis blocks ku saymaha wax kale mu aha inay ayadana ay xog ururiso xogta ay ururisana ay iibiso marka ayadana kaas ayuu ku saabsanaa Puntland inay ka hadhay heshiiska spectrum okay runtii macnaha duruufa jiray markaas oo ahayd kala duwanaanshaha aragtida ah waxa ku xirnaa macnaha arintii resource sharing ayaan wadnay see laga yeelaa runtiina waa aadan u mahadcelinaa ciise dhowlawaa waa inaan saaxiibanahay waa inaan marka qaarkood waa aadan u kala fikra duwaneen laakiin haddana saas u tahay waa wada hadli jirnay macnaha the good thing is macnaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada su-aashu waxay tahay Puntland wax ma ku haysaa xaritaankaas wax ma ku weydi adiga garashadaada maxay kula tahay runtii macna way fiicneed in xogtaas la ururiyo sababtoo xogta in la ururiyo 2 sano ay qaadanaysaa mana mar walba Puntland way u baahan tahay inay xogtaas ururiso laakiin macnaheedu ma aha inay tahay dhamaadka adduunka ma way taariikh waxaan rabay inaan wax yar weydiiyo waxaan codsanayaa inaad su'aal weydiiso just 1 minute minute kan badnaanaysa insha Allah wasiirka aad buu mahadsan yahay macluumaadkiisa iyo aqoonta ku fadhiya runtii aad baan ugu mahadinaynaa li taariikh waxaan rabay inaan kambanigii Dr. Cabdiqani uu sheegay mar dhawad Sama Oil markii la asaasay wuxuu ahaa 2013 run ahaantii kambanigaas xilligaas markii la asaasay anigu UK baan joogay kambanigaas kambani wax lacag haystay muusan ahayn hadda waxaan ku jiraa website-ka ay dawladda leedahay oo la yiraahdo company house-ka UK Companies House Some Oil and Gas Holding Limited haddaad baartaan nin walba Google-kiisa ka baaro kambaniga numberkiisa waa ku yaala welina waa active kambanigaas directoradiisa ilaa 10 director oo ay leeyihiin ayaa halkan ku qoran 10ka director laba kamid oo Soomaali labadii waa resign gareeyeen mar rabina magacyadooda sheego qof kasta intuu isaga gal ha eego dadkii ahaayeen wasiirka waa ka warhaya maleenayaa anigu laakiin waxaan diidayaa inaan magacyada halkan director u sheego ka gudub haye 7 kamid ah waa ajnabi kambaniga markii la asaasay wax lacag ma uusan haysan waxa kamid ah ragga kambaniga madaxdiisa ahaa Michael Howard oo la wada garanayo oo xisbigan conservative-ka uu ahaa German uu ahaa wuu resign garay dabcan laakiin halkan wali waa kambaniga waa active walaal su'aashaadu maxay tahay su'aasheeda waxa ay tahay macluumaadka laga hayo kambanigan wasiirku waxa uu nooga sheegay oo ah in baaritaankii la siiyay inay baaraan macluumaadkaas ka dheer muxuu wasiirka noo hayaa inuu sheegi karaa maxaa lagu ogyahay Soomaali wasiirka aad iyo aad baan u mahadcelinayaa magacaygu waa Axmed Cali Xared wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo taariikh dheer ayuu ka sheekeeyay oo waqtigii baasha hawsha ay soo bilaabatay ilaa iyo maanta meesha ay marayso iyo caqabadaha taagan mar kasta ayna wadanka xaalkiisu waa adag yahay su'aashaada waan galayaa xirsi qodobada ku xiran oo aad ka sheegtay waxa weeye يعني أفر قلبه وين إلا دمستر إلا أنت كهر رئيسان هوشا للجلين قلبه أصلا وحكم إذا معناها مغران شهادة الدستور كلته سبع الله بحنبات قريب كمله مقام بكم تيو دير تيو لبا هوشا يدو إنه وين سوق بجموده باهري إنه ويتاجن تهي ما تدعي كرتا مركا ما دام أتري الدراسات كلية وحقادنا يا طوان سنة يكبر إن وحلا بالله هوشا إلا بالله طوان سنة قادنا يسا إلا انتفاع سنة صدق سنة كدوات بجاريسة ما دحي كدا مدام دستوركنا هوشيisa miiska uu saaraya in hawshan si parallel ah ay u bilaabato oo maamulada waliba dhowr maamul oo kala taajira tusaalahaan Puntland oo kala to mar hore waliba waxa baaritaan fiican ay sameysay in heshiis yaani dawladda dhexe iyo Puntland loo madax baneeyo lagu aamino hawshaas inay qabsato hadhowtaan la iska yimaado percentage-ka iyo wax qaybsiga si aysan waxba u habsaamin oo shaqadii hore loo sii bilaabo haddii kale waa jugjug meeshaad joogto 2008 meeshaan joognayna sii joogno macnaha wasiirka iyo shacbiga kale halkan fadhiya waa mahadsantihiin erey baan la qilaahay wasiirku sheegay waa xaraashka waxbaa la xaraashay baa wasiirku yiri I can take it
midda labaad soomaaliya oil waa ku jira anaa u shaqaynayay deposit xoog la yaala intaan ka warqabo puntland marka waxay u baahan tahay sida la sheegayo sharci iyo nidaam u baahan wax socon kara inuu meesha yimaado qajajaf uma baahna dadkani dad fiican ha noqdeen dowlad ha samaysteen nidaam ha samaysteen sharcigana ha dhowreen wasiir waa mahadsantahay runtii waa na farax gelisay in dad soomaaliya oo batroolkii at least xoogaa macluumaadka haya la helay odayaasha hore dabcan waa dhinteen odayaal macluumaad hayo dee adduunyada jirana waa jiraan waxa ay keliya xusuusin lahaa 1987 haddaan khaldanayn wasiirka batroolka ee waddanka Sacuudi Arabiya Ahmed Zaki Yamani wuxuu cadeeyay joornaal ka soo baxay waddanka Algeria Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha caalamka batroolka ugu badan oo ku jiro Ahmed Zaki Yamani marka ma ahayn iska hadla ma ahayn runtii arrintaas waddanka marka Sacuudi Arabiya joognay arday baan ahayn joornaaladana ka akhrinay maxaa in ku dhacay idinka oo aad ugu wareegaysaan gaalada oo wadamada carabta maxaa idin diiday inaad calaaqad fiican la yeelataan oo xagga batroolka ah wasiirku aad iyo aad buu mahadsan yahay sida wanaagsan ee informationka iyo xogta badan su'aashaada walaal naga qarsoonayd uu noo sheegay magacaaga iyo su'aashaada magacaygu waa maxamed maxamuud su'aashan weydiinaya waxa weeye sharcigii hadda la baasgareeyay ee batroolka revenue sharing maxay helayaan ama see loo kala helaya marka laga hadlayo regional state iyo central way Samo Oil waxay ka diiwaan gashan tahay dalkaas Ingiriiska kamari kasto ka diiwaan gashan UK-na macna macluumaadkiisa Company House ayaa laga helaa mana wax qarsoodi maaha ida director-ka ka qofka hadda active ka qofkaan active ka ahayn manaha taas meesha ay ku qoran tahay soo marka horta wax qarsoodi maaha anaga marka haddaan Soomaaliya waxaan qosay waxay tahay cidda aan siinayno manaha gaar ahaan laba arin in la kala saaro u baahan seismic macnaha marka la sameeyo xog marka la abuurayo macnaha research hadii aan anaga aan afkan caadi ama la yiraahdo waa macnaha xog ururin waa taa waa qayb fudud laakiin qaybta culusa waxay tahay marka blocks la bixinayo runtii macnaha meesha loo baahan yahay in company-gan si fiican loo qiimeeyo waxay tahay marka blocks la bixinayo oo ah ma leeyahay macnaha technical qualification-kii loo baahnaa ma leeyahay financial muscle-kii loo baahnaa dhaqaalihii loo baahnaa ma leeyahay macnaha ma leeyahay experience shaqooyinka noocan ah hore uu soo qabtay ma leeyahay macnaha hadda marka tender ka qayb gasho macnaha waa tender ka qayb kamid ah assessment-iga ku jirta Soomaa soo marka meeshaas waa marka meesha oo loo baahan yahay dadka tender macnaha dadka qandaraaska bixinaya inay yihiin way aragnimada loo baahnaa sababtoo ah inaad xog soo ururiso wax weyn ma aha macnaha marka loo garab dhigo marka blocks la qodayo ama shidaal sababtoo gaar ahaan hadda Indian Ocean macnaha shirkadaha qodi kara ee heli kara macnaha aqoontii dhaqaalihii waa aragnimadii Indian Ocean ka qodi kara ma badno aad u yar yihiin soo markaas waa marka Somali Petroleum Authority laga rabo in assessment noocaas ay sameeyso oo vetting ay ku sameeyso ay tiraado okay adiga macnaha qualification loo baana waa leedahay iyo malihid soo marka meeshaas waa marka meesha cid walba soo dalbato ee lagu kala reebi doono hadii la yiraahdo soo marka meeshaas aan filaa inaysan macnaha shirkadahan wada cararaya ordaya aanay ka gudbi doonin macnaha assessment-gaas laakiin macluumaadka Samo Oil ku saabsan website ku jirta macnaha wax qarsoodi ma hada Google garaysa meesha ka buuxaan hadii aan ka sii gudbo midaan ah Ahmed Ali oo arinta dastuurka ah macnaha waxa laga yaabaa sidaan u dhahay xogaa inuu qofka fahmin xogta in la aruuriyo seismic la sameeyo 2 sano ay qaataa laakiin in la gaaro stage-ka ilaa production la gaaro ayaa 10 sano qaato shidaalka inaad soo saarto laakiin shidaalka inta aad ka faa'iideysanayso waxay ku xiran tahay ceelkaas inta uu keeni karo waxa laga yaabaa inuu yahay 30 sano waxa laga yaabaa 40 sano inuu yahay qaarkood 70 sano gaaraan soo marka taas gooni waay arinta ah macnaha Puntland ma u fasaxnaa arin macnaha ku xiran ma aha arin Puntland kaliya ku xiran ma macnaha waxay ku xiran tahay nooca federaalka aan qaadan noocee waay macnaha Canada nooc federaal waaye Mareykanka nooc federaal waaye Australia nooc federaal waaye macnaha nooca federaalka aan qaadanayno macnaha ma dowlad goboleedka awood iskale ma dowladda dhexe iskale hadda Russia oo kale afar macnaha fasax rusqada oo shidaalka bixinayso macnaha qofkii dhulka iska lahaa shakhsiga dan degmadii dan gobolkii dan dowladda dhexe afar tabar macnaha rusqay leeyihiin macnaha wadamada qaarkood dowladda federaalka bixinayso
manaha Australia ko dowlad goboleedka bixinayso marka ma aha arrin ay qolo kaliya dhigi karto annaga go'aankeena macnaha gaarina saan rabnaa annaga yeerina maana dadka Soomaaliyeed modelka ay qaadanayaan ayaga ay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan arrinta ah ereyga xaraash waa ka xumaa xajar magaca muxuu ahaa maxamed ha magaca macnaha de license roundka la sheegayo furmay todobada blog ayaa ah macnaha xaraashkaas laakiin macnaheedu ma aha waxa laga yaabaa ereyga xaraash in sida loo fasirayo oo qiimo jaban yahay laakiin macnaheedu ma waxa lagu raadinaa cidda ugu mudan oo waxa tenderka macnaha qandaraaska soo dalbanayso termiska ugu fiican bixinaysa ayaa lagu qiimeynaa sidoo kale macnaha cidda qiimeynaysa waxa la rabaa inay fiiriyaan dadka ugu mudan xaq haday noqoto xaq aqoon xaq waay aragnimo xaq dhaqaale inay siiyaan laakiin ereyga macnaha xaraash ma in oo free la saga bixinaa ama macnaha yasma ay ku jirto ma arrinta ah carabta runtii waa su'aal fiican ha xaj waa su'aal fiican oo u baahan in macnaha cidda aan kala shaqeynayn arrimaha shidaalka aan ka fikirno mana ma wax diiday malaha hadda mana Petronas soo baxday shirkado badan soo baxay oo aan western ka ahayn marka nooc shirkadaha aan la shaqeysanayno manaha options inta fiirno mid ugu fiican markaas inaan mudano arrinta ah distributionka macna meel kale loo kala qaadana manaha hal fixed ma waxay ku xiran tahay ma offshore ka hadlaysa ma onshore ka hadlaysa manaha ma royalty ka hadlaysa ma taxation ka hadlaysa manaha aan soo marka waxaan oo dhan waxay ku qoran yihiin heshiiskii baydhabo ay ku qoran yihiin hadaa Google garayso heshiiska baydhabo table dhan ku jiro oo sheegaya macnaha sida loo kala qaybsanayo petrolka sida loo kala qaybsanayo macdanta hadii aadan haynin markaan dhameeyo hadii la weydii shakhsiyan ana ku siinayo soo marka wax qarsoodi ma nin weyn lama siin karo waxa fiican halkayga daqiiqo ku darsanaya comments-kayga iida waxa fiican in qofka 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo la siiso at least wuxuu waxa codsanaya waa codsi taas aan soo jeedin taa waa ku gudbaya hayga khariga halkayga daqiiqo midda labaad wasiirka waxa weydiinaya heshiiska baydhabo lagu galay oo ay saxiixeen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo sharciga petrolka oo la ansixiyay way soo waafaqsan yihiin ma la isku daray mise way kala duwan yihiin qodobka labaad waxa weeye ma jira siyaasad qandaraas bixin ee Soomaaliya leedahay shirkadaha lagu kala saarayo tan u dambaysa hay'adda waxa tiri Somali Petroleum Authority baa la asaasay hay'adda ma shaqeysaa active ma tahay yaa madax ka ah aad u mahadsantahay kooban runtii dad noocan oo kala ah oo yani ama aqoontan u leh in aynu arrintan la soo bandhigo ama runtii xaqiiqada ah sidii isku taxallujiyay inuu wax badan ka ogaado waxa ka jira waa meelaha inuu wax ka bilaabi karno baan isleeyahay marka aad iyo aad baan horta marka ugu wanaagay wasiirka waxaan leeyahay shidaal in la soo saaro marka hore lagu heshiiyo masalana marka labaad in la soo saaro masalana waqtiga iminka aan joognana ama adeegayaba in petrol soo saaro oo qiimihiisiiba wuxuu marayaa $20 iyo wax ka siiya waqtigeena haya waa ku haya wax kala sameeyo ku soo kooyay aqoon-yahanadeenii dalka iyo geologists maanta ma nool waxba kama jiraan haddii kale waaba booy marka ma haysana dadkii xataa waxay soo saari lahaa ugu dambeyntii siyaasadii aynu nagu qaadatay inaynu maanta 30 sanadood aynu maanta heshiis kala ahay ma faleynayo inaynu haddana round kale oo siyaasadeed oo shidaal haddaynu maanta sii galaan inaynu dhowaan ka gaari karno malayn maayo su-aasha kaliya haddaba ku taagan waxa weeye ma u malaynaysaa ama ma kula tahayba inaynu batroolka arrintiisa halkaa iska dhigno waynu bal eegno 50 sanadood soo socda wixii ka dambeeya 30 sano waa loogiyaa bal soo socdee 30 sano 50 sano ku xiga waxaan ka sameyn lahayn suurtagal ma tahay wasiirka iyo dadka ka soo qayb galay qolahan waxa la wasiirka weydiiyo waxa jira 15 blog in la asteeyay oo macluumaadkoodii la helay oo shirkadii Spectrum ay daataheeda heshay waxa hadda la rabaa in la baaro laba ceelo midna waxa ku yaal Baraamiya mise marka I'm not sure iyo ceel kale ku yaal Hobyo waxa haray blogyo badan baa haray laga tagay marka blogyadaas ma waxa lagu doortay labada blog aan sheegay oo midna raacsan yahay koonfur galbeed midna uu raacsan yahay galmudug ma waxa lagu doortay ceelasha oo macna technical aspects ayaa laga fiiriyay ma waxa laga oo ah ceelka amrigiisa yani security-ga
mase waxaa laga fiiriyey xaaladda siyaasadda hadda jira oo dowladda federaalka sida loo kala dhacsan yahay mahadsanid magacaygu waa jaabir waxaan salaamayaa baanalka iyo madaxda su-aashaydu waxay ku saabsan tahay waxay xidhiir la leedahay mowduuca laga hadlayo waxaa u mahad celinayaa bonsa iyo madaxdeeda mudane wasiir haddiiba ay noqoto in heshiis laga gaadho soomaaliya arrimaha batroolka iyo sida loo qaybsan lahaa waxaan ognahay dalku inuusan lahayn ammaan damaanad ciidan damaanad qaada sidii loo soo saari lahaa batroolkaas sababta tahay in amni la helo waxay muhiim u tahay in la helo in batrool la soo saaro marka sow caqabad jirta maaha in la sameeyo ciidan soomaali intoodii badnayd waxaa lagu daray petroleum logo lagu daray soo marka way iswaafaqsan yihiin marka dhankaas aad ka fiiriso laakiinse waxaa jira weaknesses ama macnaha laciifnimo ku jirto heshiiska laftigiisa tusaale ahaan macnaha wuxuu sheegayaa distribution macnaha lacagta sida loo wadaagayo macnaha what percentage la wadaagaa laakiin waxyaabo badan ayaa ka maqan oo ah macnaha kuma xirno fiscal federalizationka guud kuma xirno macnaha waxaa la yidhi arrimaha dakhliga naga soo gala shidaalka adi 30 qaada adi 20 qaada adi saas oo kale laakiin dawladda dakhliga soo gala maamulada dakhliga soo gala shidaal kaliya maaha canshuuro kala soo gala soo canshuurihi kale see laga yeelaa sidoo kale mas-uuliyadda la imaanayso haddii adiga intaas lagu siiyo adi maxaa mas-uul ka tahay maana waxbarashadii ma caafimaadkii ma amnigii maana mas-uuliyadda laguma xirin soo marka sidoo kale waxaa ka maqan oo kale seel wada hadalkan dib loo furaa maana sidiisa haddii loo geliyo oo loo dhaafo maanaheedu waxay tahay saan fixid ahaanaysaa duruufaha dhaqaalaha dalka waa isbedeli doonaa see laga yeelaa marka waxyaabo badan oo weakness ayuu leeyahay laakiinse in principle maana guud ahaan waa lagu daray heshiiskii sharciga waa lagu daray ma leenahay macnaha siyaasad oo qandaraas bixinta macnaha annaga hadda waxaan leenahay procurement act waa leenahay laakiin markay imaado arrimaha maamulka shidaalka cidda horta macnaha inay shirkadahan soo qiimeeyaan inay mudan yihiin inay qualified yihiin laga rabo waa Somali Petroleum Authority waa la sameeyey dabcan macnaha Puntland reservation ka qabtaa macnaha kuma faraxsano sida loo sameeyay kuma faraxsano laakiin waa la sameeyey way jirtaa laakiin waa hay'ad cusub oo bilow ah marka hay'ad cusub oo bilow ah oo aan dhaqaaleeda hadda kadib raadinaysa xafiiskeeda hadda raadinaysa dad way arag raadinaysa ayaa waxay la tacaamulayaan shirkado billions of dollars haysto dad experts haysto lawyer haysto data haysto mana way aragnimo haysto maybe 100 san ku dhawaad shaqo kale ay haysato ayaa la tacaamulaysaa soo markaad hay'adaha noocaas la tacaamulayso waa fahmi kartaa culayska ay keenayso marka waxaan u baahanahay inaan hay'adahaas aan aad u xoojino laakiin se sharci ahaan way jirtaa midda oo wasiir Cabdullaahi uu sheegay Soomaaliya hadaytay saadalkii ku daray laba umba anaga waxa jirto wax leeyahay macro economic trigger mana dhaqaalaha daarta hal mar inuu si fiican jug u yiraahdo waa inaad investment xoogan oo soo gelisaa investment xoogan labada kinoo keeni karto waa either macna badan inaan ka helno ama shidaalkeen inaan ka helno laakiinse macnaha taleefanadaan keeni karin waxaan keeni karin macnaha trade-kan caadigan keeni karin xoolahan keeni karin beerahan keeni karin mana Soomaaliya hadda ka soo qaad beeraha kale inaad hormariso horta waxaad u baahan tahay laftigooda in aad beerihii aad jidka dhisto kaabayaasha u baahnaa aad samayso mana ma fahamtay mana waxa investmentiga xoogan hal mar soo jiidi karo oo labadaas haddii marka labadaas aan meel aan iska dhigno then waa adkaanaysaa Soomaaliya in waa laga yaabaa inay hormarto oo si kale ku hormarto laakiin waqti qaadanaysaa inay hormarto marka maadaama aan kheyraad leenahay aan ma qabo fikradda aan iska dhigno macna meel ma qabo waxaan suurtagal ah 30 sano kadib gebigiis been laga maarmo marka hataa meel dhigano oo keed uu noogu jiro 30 sano naga dhamaato then wax macno weyn uu noogu fadhiyo malaha arinta doctorka uu sheegay license roundka 15 baroog uu ka hadlay waxay ahayd London waa tii 8 February 2019 la soo bandhigay laakiin macna tenderkaas maanu hirgelin dib ayaa loo laabtay dawladdu waxay ka dhigtay mar labaad bishii August ayay furtay oo ay ka dhigtay 7 block ay ka dhigtay marka macluumaadka oo 15 block ah macnaha ma jiro meeshuu ku xirmay 7 block ayaa hadda taalo 7 blockna macnaha cidii dalbanaysa wali qandaraaskeeda muusan soo xirmin macnaha markuu soo xirmo ayaa la sheegi doonaa macnaha cidii ku guuleystay laakiinse macnaha meesha ay ku kala yaalaan waa macnaha waa galmudug iyo southwest macnaha qarsoodi ma aha website-ka ku jiraan macnaha hadii aad gashid Somali license round
maana tender protocolka meesha ku jiraan su-aasha siduu u dhigay nuur waxa weeye ma siyaasad ahaan baa loo doortay labadaas block mise waxaa lagu doortay waxa ku jira oo loo arkay inay yihiin kuwa ka fursad fiican kuwa kale waa xogta la ururiyay ku jiraan runtii macnaha maxaa specifically loo doortay taa ani kama jawaabi karo wasiirka hadda joogaa ku habboon inuu ka jawaabo why exactly this blocks loo doortay macnaha kama jawaabi karo laakiin waa waxay ku jiraan meelaha xogta laga ururiyay ku jiraan puntland kuma jirtaba arrintan macnaha hadda license roundka 7 block kuma jirto puntland kuma jirto waa gartay arrinta oo jaabir arrinta amniga ama amniga ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama waxaas oo dhan macnaha ama environment ha noqoto ama xuquuqul insaan ha noqoto waa waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto marka kuma xirno arrin oo shidaal kaliya ku xirma waa arrin aan looga maarmin haddii la rabo wadankan hataa iman ganacsiga caadiga amni kama maarmaayo soo marka taas shardi ku xiran maaha waayahay gunaanadkii baynu gelaynaa ugu dambeyn insha allah remarkskaagii ama fariintaadii ugu dambeysay ee barnaamijkan ayaad bixin doontaa kadibna waxaan soo dhaweyn doonaa mahadka heritage saraakiisha ka socota si ay halkan punsa u siiyaan munaasabadan ay kusoo beegantay farxadna waynoo tahay soomaalidu hadday helaan dhaqaale maxaad u malaynaysaa in arrinkoodu noqon doono ma degideg kartaa siyaasad ra'yi ahaan maxay kula tahay adiga waa su-aal fiican laakiin su-aasha waxay tahay ma inay xasisho ayay ku hormari kartaa mise ayadoo aan xasilin oo siyaasadda ku heshiina iska hormari kartaa anigu waa ii dhiman tahay waddan isagoon heshiinin oon macnaha siyaasadda ka heshiinin inuu iska hormaro ma aqaan haddii cirka dahab noogu soo doodana ma aqaan laakiinse caadiyan bani aadamka manaha ama ha noqoto qof ama ha noqoto qaran waxyaabaha waxaa jirto development stageska caadiga uu maro hataa iska dhig shidaalka dhinac iska dhig manaha maxaa ka mid ah manaha waxbarashada oo kale qofka inuu waxbarashada ku dadaalo qofka inuu shaqaysto oo shaqada uu ku dadaalo then qofka inuu saving samaysto oo lacagihii uu maaligto qofka inuu sharciga ilaaliyo so these are the four stages oo qofka bani aadamku umar markuu hormarayo wadana markuu hormarayo isna waa saas oo kale manaha inuu siyaasadda ku heshiiyo sharciga ku heshiiyo marka hal maa baan rabaa aan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago runtiina aad aan u rajayn lahaa in uu maapka uu noo shaqeeyo screenka laakiin nasiib daro ma noo shaqeyn haddii farsamo yaqaan waxaan rabaa maapkan inaad si fiican u fiirisaan inta awoodo waxaan siin doonaa midi muuqdaa waxoogaa waxaan u malaynayaa halka ma nageyn karaa way farsamadu way waxoogaa okay suurtagal maaha la yiri farsamo ahaan hadda kama gaarno laakiin waxaan rabaa inaad fikrad iga siisaan maxaa idinkaga muuqdo ya aan u jawaabo anigu ma arkaysaan miya anaa u arkaya ma arkaysaa anigu aan u arko ma arkaysaa wax kale ma arkaysa okay midabka u badan maxaa ka muuqda casaan soo maaha casaan ama guduud mashaakil malaha soo kama muuqdo haddaan idin dhaho potentially shidaal ku jiro soomaaliya intaasuu leegahay potentially manaha shidaal ku jiro waa inta la filayo maanaha meelaha buluuga ah meelaha goldiga ah waa meelaha aanu hadda aan lagu ogeyn shidaal uu ku jiro marka sida hadda uu baabkan u samaysan yahay haddii uu u hirgalo state la leeyahay shidaal ma jiro waa lagu kala badnaan karaa dabcan waxaanan hadda halkan ka muuqan badiyaan ka muuqan laakiinse potentially maanaha marka ma jirto state la leeyahay wax ma soo saara ama wax lagama helo ma laha so marka fursad fiican waan u leenahay laakiin saan sheegnay marka hore waxaan u baahannahay siyaasaddii iyo shuruucdii iyo dad kartida iyo macnaha hay-adihii aan u baahnayn inaan samaysano waa mahadsantahay waa mahadsan tahay hadalka ugu dambeeya iyo gunaanadkaaga kusoo xidh insha allah barnaamijka runtii mar kale waan kaga mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha dhammaanteed iyo bunsa fursad fiican ayay ahayd aanan reer puntland aan ku sheekaysano waa jeclaa muddo intaan ka dheer inaan socna laakiin maana suurtoobin runtii macdanta waa meelaha soomaaliya ayadana sidoo kale fursad fiican ay ku leedahay laakiin waxay la mid tahay arrinta beerahoo kale in aad macdanta laba nooc ayaa loo kala saaraa marna macnaa waxaa leeyahay artisanal la yiraahdaa waa qofkii oo inta baangad qaata ama buris qaata ama yaamba qaata whatever wax ku qoto maana marna waa commercial maana marka laga hadlayo marka commercial waa macnaha development waa inay dhacdo macnaha sababtoo ayaga shirkadaha macdanaysiga samaynayo dekada ma dhisaan inta badan jidad ma sameeyaan koronto raqiisa ma keenaan waxa shaqadooda ma ayaga waxay shaqadooda tahay inay inta godkiisa tagaan ay soo saaraan
amni ma sugaan waxaasoo dhan ma sameeyaan waxa hadda annaga aan ugu cararayna badda macnaha waxay tahay badda macnaha waxaa la aaminsan yahay amnigeedu xoogaa inuu ka fudud yahay marka loo garab dhigo beriga macnaha inaanu u baahnayn infrastructure development waaweyn inuu baahnayn so marka arrimahaasaa keenaya mooyaane macdanta laftigeeda waa fursad ayaan u fiican fursad fiican ayaan ku leenahay runtiina waa idinkaga mahad celinaa macnaha waddankeena potentially macnaha dhaqaalo waa leenahay ama ha noqoto kalluumaysa ama shidaal ha noqoto laakiinse waxaan u baahannahay marka ugu horeyso inaan siyaasadda ka heshiino then markaas kadib stepskii ku xigay oo ahayd macnaha dhaqaalaha aan samaysano shuruucdii aan samaysano hay-adihii ay naga dhiman intaas waxaa dheer marka idinkaa idinka codsanaa shakhsiyan inaad noqotaan active citizen macnaha annaga waxa hadda noogu waaweyn oo dhibaatada naga haysto macnaha waxay tahay dadkii laftigooda inaanay ahaan active citizen ama ha noqoto civil society-ga ama ha noqoto qofka individualska macnaha resource-kan annaga iskale cid aan mas-uul kaaga ah ma laha macnaha xaqaad ku leedahay marka inaad la socoto ka warqabto aad weydiiso waa waxa macnaha ugu fiican ee aan kaga qayb qaadan karno horumarintiisa waa mahadsantihiin